واتاي بسم الله الرحمن الرحيم مر لبad baan ku celinayaa meel aad joogtaan ma ku soo dhawaada waxa waaniga Cabdilaahi aad iyo aad baan ka mahadnaqayaa caawa si fiican isku markayno iftiinku nagu yar yahay codka inaad maqasho ma muhiima waxa halkan ila fadhiya Axmed Cabdi Ciise oo isagu ah aqoonyahan kaga hadlaya arintan doorashada ayaanu kaga hadlaynaa aniyo Axmed ba codkida si fiican maqashay ma rajinaya hawadna maqlaysaa aad ma hasan tahay asma jaaba sheegtay inaan maqlayso idinna maqlay ma rajinaya way markuu guriso doorashadii sidee ayay u dhacday maalintii dhaweyd waxaan idin soo qadinoo kaliya waxaan idin soo qadinay codad baan ka hadalay codadkii soo baxayay laakiin waxaan idin la socodsiinaa doorashadu inay si qurux badan u dhacday oo aad iyo aad u qurux badan oo boqolkiiba boqol wanaagsanayd oo runtii dadka reer Somaliland xusbi kasta ha u codeeyaane ay aad iyo aad u qurux badnayd Axmed bay la faaqidaya waxaan kaloo ka hadlaynaa xusbiyadu codadka ay kala sheeganayaan magaalada Hargeysa Somaliland inteeda kale wax dabaaldega kama socdo xusbi guuleystay oo sheegayna guuleystay oo sacabatumaya iyo dadweynaha mana jiraan cod rasmi ah oo golaha guddiga doorashooyinka ka soo baxayna ma jiro laakiin waxa jira codad ka soo baxaya xisbiyada siday u kala heleen xisbi kasta wuxuu haystaa intii uu helay marka taasan ka wada hadlayna iyo saadaashii uu Axmed sameeyay barnaamij hore ku soo qaadanay aniga Axmed oo laga yaabay intii TV-ga igala socotay inaad TV ka daawateen marka arrimahaas aanu ka hadlaynaa imika may maqlaysaan haddaad maqlaysaan ha ku soo qoray idin koomatan qofkay maqlaya ku soo qor ha qoran u baahanay hadal dheer uma baahni si wanaagsan miya codka kor u qaad miya ma maqlayo marka codkiina inaad codkayga maqlaysaan in kale aad sheegaysaan waad maasantahay mar labaad haaba tiraadeen Axmed markuu ugu horeysa doorashadii waxay ahayd doorasho aad u qurux badan si qurux badan u dhacday aad iyo aad looga maqsuuday waxyaabaha doorashada adiga ku soo jiitay Axmed Amartu waxaad maadaama aad joogtay markuu ugu horeysa Cabdilaahi doorashada waan joogay magaalada Hargeysa ku sugnaa ilaa intaan walaha doorashadu aanu bilaamin ayaan Hargeysa ku sugnaa waxay doorasho qurux badan ayaa noo dhacday waxay indhahayga soo jiitay si dadweynaha reer Somaliland sida wanaagsan ay safaf u galeen sida wanaagsan ee codbixinta ay ugu dareereen waxyaabahaas ayaa ka mid ah waxyaabaha ay soo jiitay waxa kale Cabdilaahi ugu muhiimsanaa sida ciidamada nabadgelyadu ay ammaanka u sugayeen oo aad iyaguna hambalyo mudan waxa kale oo hambalyo mudan guddiga doorashooyinka saar ay say doorashada uga hawlgaleen oo aad iyo aad u qurux badnayd saad ula socotaan Cabdilaahi oo shabeelka waxaan ku sugnaa Mansour Telban ku sugnaa waxa halkaasi warbixin hordhaca na siiyay kormeerayaashii doorashada ee caalamiga ah waxaana ka hadleen say doorashada Somaliland u dhacday waxayna sheegeen in doorashadii Somaliland ay u dhacday si aad iyo aad u qurux badan oo ay ku soo koobeen oo ilaahdeen wuu wanaagsanaa dabcan way sheegeen waxyaabo yar oo khaladaad ah oo ilaahdeen laakiin khaladaad yar oo kooban oo aan magaranaysaa aan systematic ahayn ama aan baahsanayn marka waxyaabahaas way iska jireen waxa kale ka hadleen shalay toolo ilaahdeen in dadweynaha reer Soomaaliya mustaqbalka loo baahan yahay in iyagu codeyn karaan oo dee wax jistay waxay ka hadleen habka codkan qarsoodi yahay waxaan dimuqraadiyadda ayay asalkeedaba tahay in qofku codkiisa ku bixiyo si garanaysaa qarsoodi isagu soo yahay laakiin guud ahaan waxaan Somaliland waxa u qabsoontay doorasho aad u wanaagsan oo si wanaagsan oo qurux badan u dhacday waatay aad iyo aad u mahadsan yahay saaxiibkay Axmed Cabdi Jaamac وأخويها أحمد عبد عيسى أحمد عبد جعبان كله أحمد عبد عيسى ويان وأخويها رئيس مالنا وطبعا دراسات سمية سياسة فكرة وقضاء بين شيء من نقف كسب فكر سياسة بو أمسية هي لكن فكر كيس سياسة كما هذلنا وعنو كهذلنا هذا دورشدي أينو كهذلنا عاو هالكي أي مريسة بيسوي ديله دورشدي هالكي بي مريسة waxaan ogahay in badan oo idin kamida in aad doorashada isweydiinaysaan leedahay xagee ay ku dambeysay maxaa codadku soo baxay bixilaayi horta markuu ugu horeyso waxaan idin la socodsiinaynaa haba yaraatee ma jiro xusbi sheeganaya guul
oo isagu intuu soo baxay le anaga guulaysanay oo guushana raacday oo si toosa warbixin ka soo saaray sidaad ku daawateen shirjiraydada ay qabteen saad ku daawateen maxaa ku raadeen warbiximaha ay bixiyeen laakiin waxaan idin la socotiinaynaa inay haddana sidoo kale jiraan codad soo baxaya tiraa oo xusbiyada laftoodaanu ka helayno wakiiladii u joogay meelo kala duwan iyo dabcan gudaha caasimadda Somaliland oo ay ka soo saarayaan codadka laakiin waxaanu ixtiraamaynaa mar walba oo ixtiraamaynaa gudida doorashooyinku inay yihiin kuwa ugu dambeeya ee soo saaraya codka la kala helay iyo sida tiradu ay kala tahay iyo xisbiga guulaystay cidda kaliya ku dhawaaqi karta waa gudida doorashooyinka waxa halkaanu ka sheegnaa waxa weeyaan waxyaabaha soo baxaya ee soo gaaraya iyo sida la iskugu faanayo anigu waxaan tagay xarunta xisbiga wadani sidoo kale xarunta xisbiga kulmiye imikana waxaan ku raagay oo aan dib ugu dhacnay oo aan ka xumahay oo aan tagay xarunta gudida doorashooyinka Somaliland waliba xaruntii gudida doorashooyinka Somaliland ee caadiyan ayagu lahaayeen hawshu way ka ballaaratay waxa sanaaduuqdii iyo codadkii gobolka Maroodijeex iyo codad kaleba lagu tirinayaa hoteelkii la oran jiray Main Sing cidii garanaysa waa hoteelka barbarka ku hayo dooxa Hargeysa iyo bridge-ka cusub ee dhinaca Hargeysa u kala gudba gobanka iyo hawdka dhinaca magaalada Hargeysa u kala baxa marka tirintii codadka ayaa lagu jiraa ilaa iyo hadda gobolka Maroodijeex ayay codkiisii tirinayaan marka codadku halkaas ay marayaan laakiin waxa jira tirooyin soo baxay oo cadeynaya in xisbiyadu doorashada ku kala hadheen tirooyinkaasi ma aha kuwa si rasmi ah u soo baxay oo la oran karo waa iyagoo sax ah laakiin waxay yihiin